shiinaha ayaa si rasmi ah u soo saaray markabkii saddexaad ee noociisu yahay kuwa dayuuradaha xambaara. markabkani ayay magaciisa u bixiyeen Fujian. warbaahinta dawladda shiinaha ayaa sheegtay inuu yahay markabkii dagaal ee ugu dambeeyay uguna casrisanaa ee dalkaasi lagu soo bandhigo xaflad iyo dabaaldeg gaaban subaxnimadii Jimcaha maanta ah. xarunta maraakiibta ee shiinaha ee China State Shipping Building Corporation CSSC, xaruntaasi oo ku taala magaalada Shanghai, halkaasi oo uu dhismaha markabkani ka socday ilaa sanadkii 2018. warbaahinta Global Times oo ay maamusha dawladdu ayaa sheegtay in shahaadadii markabka lagu wareejiyay sarkaalka hogaamin doona Fujian, isla markaasina xadhigga si rasmi ah looga jaray oo markabkuna ka baxay goobta maraakiibta lagu sameeyo. Fujian ayuu shiinuhu ku tilmaamay inuu yahay markabkii ugu casrisanaa ee dagaal ee dayuuradaha xambaara, kaas oo ay u dhammaystiran yihiin qalabka korontada ku shaqeeya iyo qalabada kale ee awoodda buuxda u leh inay diyaaraduhu ka dulduulaan kuna soo duldegaan, isla markaana lagu sameeyo gudaha waddanka. arrintani ayaa qayb ka ah dadaalka socda ee uu shiinuhu ku casriyeynayo ciidamada badda iyo ciidanka xoreynta dadweynaha ee PLA Navy, kuwaas oo hore u lahaa 2 markab oo iyana ah nooca dayuuradaha xambaara. wargeyska South China Morning Post ayaa hore u sheegay in markabka Fujian iyo mid afraad oo isna haatan dhismihiisu socdo ay awood u leeyihiin qaadista dayuurada ka badan 2 markab ee hadda jira inta ay qaadi karaan, iyadoo ka afraad ee dhismihiisu uu haatan socdaana uu ku shaqaynayo nuclear. Axmed Maxamuud Yuusuf, telefishinka SAB. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland.